السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد بوصية مركلة ما أنتي وحان دول تغينا دنلي دادك اللي يراهدو oo wadankooda traitorka ku sameeya oo wadanka sirtii sabixiya wadamada kala la shaqeeya waxa loo yaqaan double agent laba kaarlayaasha wadamadooda waxay ku xukumaan iyo ciqaabtay mutaystaan ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Christopher Lagas oo u dhashay wadanka Mareykanka waa 28 jir culayskiisuna dhan yahay 175 pound waa nin ku xeel dheer kombiyuutarada shaqadiisuna ay ahayd computer programmer markuu helay macluumaad xasaasi ah oo wadankiisa ku saabsan buu wadan kale hoosta uga dusiyay markaas buu ka qaatay xoogaa lacag ah waa la soo qabtay asagoon ka qadayn laakiin timaha ka jartay waxa lagu xukumay 245 sano xabag iyo liin buu ku cabahayaa xabsiga Ted Johnson waa nin u dhashay wadanka South Africa waa 38 jir culayskiisuna dhan yahay 167 pound muddo dheer ciidamada ku jiray lagu aaminay sir badan macluumaad badan buu gacmaha ku dhigay oo lacag badan u gooya markaas bay u hilaacday hoostu uga dhiibay oo u dusiyay wadamo kale waa la soo qabtay asagoo ka quraacday oo la bismeel ka iibsanay markaas baa lagu xukumay dil toogasho ah oohin maxay tarin markaas buu af labadii dhawaaq kaas wuu ku daayay tiirku liinta ku cabay ninkan waa nin la yiraahdo Lucas Cranson waa nin u dhashay dalka Faransiiska waa 26 jir culayskiisuna dhan yahay 141 pound nin madaxaba dhalay shaqa waxa laga siiyay xarunta dawladda qaas ahaan meelaha sirta lagu kaydiyo markaas buu arkay wuxuusan malayn karin wadamuu la hadlay markaas baa loo fargareeyay lacag aan cadadeedu horay u soo marin indhihii baa cirka aaday wuu duuduubay hoostu uga dhiibay waxa la qabtay asagoo gaarigii uu jeclaa ka gadan xukun dilaa baa lagu xukumay in xarig lagu dilo qoorta loo geliyo bal wadankeena Soomaaliyana aan ka sheekayno maxaa noo jooga maxaan haysanaa raggii wadankeena gaday badeena gaday Soomaaliya fooseel ka dhigay godkaan ku jirno aan ka soo bixi la'nahay struggle-ka maanta aan ku jirno dadkii nagu riday kuwiina geeyay halkaas oo na hortaagan oo nale annaka idin gadanay annaka halka idin geeynay annakaana idin xukumina doona ayaa maanta na hortaagan qaarkood xildhibaanay yihiin qaarkood aqalka sare ku jiraan qaarkood xisbiye leeyihiin oo xisbiye lagu sharfahayo oo ubax lagu soo dhaweynayo waan sugi la ahay doorashade hal soo dedejiyo inta ka hartayna aan iibsade ilaa waa iska kaana qaban weydeene indhaheena miyaysan furnayn qabyaalad heerkayna gaarsiisay meeshayna gaarsiisay qabyaalad baan idin tusahayaa dadkiina iibsaday oo wadankeena iibsaday oo halkaana dhigay oo cadow ilkaha noo geliyay oo shilina siistay oo annakii qarannimadeedii iibsaday ayaa maanta sugila doorashada sugila qaar baa aqalka sare nuugu jira oo wadankeena duminahaya oo qaran dumis ah oo lacag soo qaadanahaya oo betrayer ah war miyayna arkayn adduunka se u dhaqmahayaan betrayerkooda iyo kuwooda wadamadooda danleyda ku xadgudba oo shilinka siista inay dil toogasho ku xukumahayaan inay 100 sano ku xukumahayaan inay af labadii dhawaaqahayaan oo ooyahayaan war sharciga noo yaala muxuu yahay haddaana iska qabanayn danleydan hortaagan xinjiro dhuuqyadaan ilkaha micigalooliyada oo calooshu inta la ekaatay oo wada naaxnaaxay oo dhiigayagii ka naaxay haddaana iska qaban karin maxaan u noolnahay war wax macquula miyaa
war wax aqliga binu aadanka geli kara miyaa oo logic ah war miyaana xinjiro dhuuqyadaas aana keeni karin oo isbaadka nimanka shilista noqday war miyaana xiri karin war miyaana dil toogasho ah ku xukumi karin sharciga waxay ka helaan miyaana horgeyn karin maxaa naga qaldan ummad soo jeeda oo sida binu aadanka u dhaqmada miyaana ahayn war nin jeclaysiga aan iska dayno war qarannimadayada aan eegno waad arkaysiin adduunka soo ula dhaqmado kuwooda waxa waaye maaragtay sirtooda bixiyo oo qarannimadooda ka hor yimaada suu adduunka ula dhaqmo waad aragteen waana daawanayseen xukuumada ku dhacayay waad arkayseen inaan loo maciinayn oo loo asxaan falayn waa daawanayseen Lisa Bitel waxay u dhalatay waddanka Spain da'deedu waa 41 sano culayskeeduna waa 121 pound waxay ahayd xubin firfircoon oo qaabilsaneyd sirdoonka waddankaas macluumaad ay haysay markay hoosta ka dusisay waxaa lagu xukumay dil toogasho ah tiirkaba ma gaarine dubihii markuu ku dhacay uu xukunkii ka dul yeeray ayadana naftii baa ka baxday Jose Mario wuxuu u dhashay dalka Mexico waa 36 jir culayskiisuna dhan yahay 195 pound wuxuu ahaa detective oo qaabilsan qaybaha dambi baarista macluumaad badan uu hayay markuu hoosta ka dusiyay gacantana u gashay kuwa wax dila iyo cartels dad badan oo sirdoon ah oo ku dhex jiray oo guryaha la jiifay markay magacyadoodii ka heleen riboodkii uu gudbiyay kuwa wax dila waxay u noqotay treasure magacyay raadinahayeen iyo dad ay muddo dheer doondoonahayeen baa uga soo dhex baxay halkaa waxaa ka dhacay dil badan oo galaafatay naf badan Xusay wuu diiday inuu fariisto xukunkiisa intuu socday asagana garbaha xoog loo hayay wuxuu raftaba dhagihiisu waxay maqleen dil toogasho ah xoog wuxuu lahaa buu isku geey asxaan ma yaal agtoode ayakuna ilkahay ku qaateen